madaxweyne xasan maxamuud saaxiibaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare saaxiibka cabdiraxmaan cabshakuur oo aad loogu sacbinayay sacabkaan waxbaa ku jira dhammaan inta kale ee mas-uuliyiinta ah qof walba meesha magaca uu ku fadhiyo inaan idinku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay muqdisho oo si fiican la isugu soo noqday oo waayada xusuustay oo xafladaha habeenadii laga qaybgelayo oo aan luuqad kala duwan lahayn oo aan qofna la riixaynin oo waxa keliya jira ay tahay shabaab iyo ciladooda keliya aad baan ugu faraxsanahay waana ka mahadcelinayaa intii aan joognay inay ka bedelan tahay marar badan ugu jiray taa marka laga soo tago waxaa xaqiiqa ah soomaalidu sanadihii ugu dambeeyey isbedelada muuqanayay ee siyaasadeed waxay keeneen horumar iyo deganaansho in la garto oo maanta beelweynta hawiye oon uga mahadcelinayo xafladdan aada u maamuuska fiican iyo qadadan inay u gartaan in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed iyo isbeddelku marwalba sida uu yahay iyo dowladnimada soomaalida markay isxamaantida waxaa loola jiray dowladnimada hawiyaa ugu daran oo waxoogaa dagaaladii sugeeyey markay dhaceen inta badan xantu mootay soomaalidu isxaaman jirteen hawiyuhu waxoogaa xagga dowladnimada waa lagaga fiican yaa lagu xaman jiray waxaa hadda muuqata cidda dowladnimada ugu dhow ee raadinaysa ee war dowladnimo war soomaali war isu keenkeena war shir nabadeed war ha laga shaqeeyo inay hawiyo noqdaan taana waan idinka mahadcelinaya weliba aan kaftay war kusii darsado dhuusamareeb baan tagay xag hor dhuusamareeb mana dhisna dadna ma qaadi karto seentolow intaa ku wada tegi karaa waxaa la leeyahay habeenkii intaa sharka ogad khayr bay ku bedasheen adaa la arki doona waa midda keentay in magacii dhuusamareeb la bedelo oo samareeb loo bedelo marka waxaan rabaa inaan beelweynta halkaa fadhiyo uga mahadceliyo rabitaanka dowladnimo soomaalinimo sida ay u rabaan in siyaasadda waddankaani degto in la heshiiyo in wax lala wada lahaado aad baan idinka mahadcelinaya waxaan rabaa inaan idiin qeexo shirkii aanu isugu nimid ee ka soo bilowday dhuusamareeb oo mahaddiisa ilaahay ka sokow dadkii martigeliya ay lahaayeen inuu ku dhammaaday dareen fiican oo qof waliba qofka kale uu xaq dhowlayay maanaan iskhasbaynin jujuub muuna jirin weliba aan uga mahadcelinay madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu xataa iyo war technical xataa aan u marayo waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow ee dadku xilligeeda doorasho ku dhici karta in loo qabto aanan u arka buuhi xasiloonida waddanku inay taagu jirto warka habeenkii markaa waxaa ka asarsan ka maalintii midka maalintii laysu sheego waynu ognahay xanta taale iyo habeenkii wixii laysu sheegi jiray maanta waa ilaahay maadi markii shirkaa la ii sheegay waxaa niyo anaa la yidhaahdaa war ra-iisul wasaare la magacaabo qola aan ra-iisul wasaare qaadan jirinna waa la siiyey ama yidhaha waxoogaa jag ha la siiyo laakiin waa la isla fahmo waxay noqotay saaxiibadii baa hore u sheegeen hadduu shir balowsi joogana wax kaluu sii sheegi lahaa marka arrintaasna aad bay u fiicnayno waxaan isla qaadanay aragtidii kulligeed waxay noqotay waddadaa in la wada qaado waan idinka mahadcelinaynaa xafladdan iyo munaasabaddan waxaan rajaynayaa midda kalena inay kasii weynaan doonto waxaan rajaynayaa niyad ficni inaan doorasho ku aadi doono
waxaan rajaynayaa ka xildhibaanka raadinaya iyo ka midka hadda ku fadhiya iyo ka madaxweynaha raadinaya iyo ka hadda ku fadhiya kulli inagoo gacmaha haysaysana inaan u dareemi doono beeshuna ay sidaas guusheeda ku gaari doonto waxaa aad loo soo celceliyaan rabaa si aan ku talagalahayn inaan uga hadlo magaalada muqdisho waa caasimaddii soomaaliya warka hawiyo aada u dhegaysta caasimaddana hawiya dadka kama xigo magaaladan ku soo koray wax ku soo bartay ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba caasimadda muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciya oo ay leedahay oy matalaad ku leedahay caasimadda muqdisho uma baahna guddoomiye loo soo magacaabo uma baahna nin kolba la bedelo waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato suujadii loo sameeyo biyo macaan ay hesho koronto bilaasha ay hesho dhaqaale dib loogu celiyo borosayskaasi xilligii horena waa laga hadlay waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go-aanka gaari waayo waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid a doorashada soo socota inaan lagu murmin maqaamka caasimadda inaan lagu murmin matalaadeeda inaan lagu murmin ee la qeexo wax walba wax cadoon isku ognahay oo nin walba faylka gacanta u haysta inaan ka tagnaan rabna haddii lahayna hawsha aan sidaa u wada qaadano yaan la isku dhaga hadlin anaa ugu jecel caasimaddu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho qof iga xigaana maanta ma jiro aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka sugaynaa inaan samayno fulinta waxyaalaha aan heshiiska ku gaadhnay nabadgelyada aan ka wada shaqayno ay soo baxda muurkii doorashadu dadku inuu doorasho dalku inuu dareeray intaa la dareemo waad mahadsantihiin saaxiibadayna aad baan idinku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu